Soo dhawaada, anigu magacaygu waa Axmed. Waxaan halkan u joogaa inaan kaga sheekeeyo qisadeeda. Waxa aan jiraa 22 sano. Waxaan la deganahay qoyskayga. Waxaan deganahay apartment aad u weyn. Waxaa deriskeena ah maamo lagu magacaabo Maama Khadiija. Waxa ay degan tahay keligeeda, malana ha wax caruur ah. Ayada ayaan ka sheekeyn doonaa qisadeeda. Xaafadeena ma ay buuq badneen, waayo waxaa deganaa dad waaweyn bas ah, ma aynan haysan caruur. Maama Khadiija wayna soo booqan jirtay si ay u hilmaamto kalinimadeeda. Waxa ay nala sheekeysan jirtay hooyadii. Kadib markii uu dhintay ninkeedii, mana la oga sababta uu ninkeeda u dhintay. Waxa ay noo imaan jirtay si ay noola sheekeysato ilaa uu naga go'ay booqashadeedii. Hooyadii ayaa ii imaaday, waxa ay dhahday, wiilkayga Jihaad maalmahan maxaa dhacay? Nama soo booqato Maama Khadiija. Waxaan dhahay waxaa laga yaabaa in ay aaday qaraabooyinkeeda. Waxay dhahday ma laha wax qaraabo ah. Waxay leedahay hal wiil, wiilkeedana waxa uu jiraa dibadda si uu usoo dhammaysto waxbarashadiisa. Waxaan dhahnay ma ogi, laakiin waxaa lasoo garaacay albaabka. Markii aan furnay ayaa waxaa noo imaaday Maama Khadiija oo ooynaysa iyadoo baqaysa. Guriga ayaan soo gelinay, waxaana fadhiisinay qolka fadhiga. Waxaan u keenay biyo si ay u cabto. Markii ay degtay ayaan weydiinay sababta ay la ooynayso. Waxay noo sheegtay inuu yahay ninkeeda Axmed, wuxuuna rabaa in uu dilo. Waan yaabnay waayo ninkeeda Axmed waa uu dhintay. Kadib markii ay nasatay ayaa waxa ayna dhahday waa ininkaan qaadanaya, waxaan u socdaa reerkeygii. Kadib markii la gaaray waqtiga cashada ayaa waxaa imaaday aabahay. Waxay u sheegtay hooyadii qisadii qabsatay Maama Khadiija. Waxa uu dhahay waxaa laga yaabaa in ay u dulqaadan weysay dhimashada ninkeeda oo ay waalatay. Waxaan dhahay wayba ka nasatay, waayo wuu dili jiray, haddana way nasatay. Wuxuu dhahay laakiin waxaa dhib badan maqnaanshaha iyo kelinimada ay guriga keligeed ku tahay. Isku day inaad mar walba u tagto oo na soo fiiriso xaaladeeda. Kadib waxaan aadnay qolkeena si aan u seexanno. Markii la marayay saqda dhexe ayaa waxaan ku soo kacnay qayli iyo albaabkoo la garaacayo. Kulligeen waan soo baxnay. Markii albaabka aan ka furnay waxa ay ahayd Maama Khadiija. Markaan ka furnay waxa ay dhahday waxa idil raba ninkeygii, wuxuu rabaa in uu dilo, markaas ayuu nasan doonaa. Guriga ayaan ka furnay, waxaan soo gelinay guriga, markaas ayaan fadhiisinay. Markii ay nasatay ayay haddana waxay dhahday waan baxayaa, balse aabay waxa uu ku dhahay waa inaad caawa nala jiifataa, waayo haddii uu ninkaaga joogo sida aad sheegtay wuu ku dili doonaa. Hooyadeena waxay dhahday waa sax, waa inaad nala joogtaa. Waxay isku dhiibtay amarkeena, kadib waa ay nala seexatay. Guriga waxay joogtay ilaa ay muddo 3 maalmood. Wuxuu xaalka sidaa ku sii socda ayaa maalintii dambe waxa ay dhahday waa inaan baxaa, uma ogolaan doono ninkeyga inuu iga qaato gurigeyga, waayo waxa uu rabaa inuu idilo kadib uu qaato guriga. Hooyadii waxa ay isku dayacisay inay qanciso, balse waxa ay dhahday ma ogolaan karo, waayo waxaan jeclahay gurigeyga. Waxay dhahday waa baxayaa, balse maxay kula tahay inaad ila darto wiilkaaga Jihaad si uu iila soo jiifto. Intii hooyadii jawaabin ayaa aniga soo booday, waxaana dhahay waan ogolahay in aan ku raaco. Hooyadii indhaheeda waxaa laga garanayay in ay rabeen inaan raaco, balse aniga waxa ay qaaday xiisahayga. Isla markii waan booday, waxaan soo xirxirtay boorsadeeda, waxaana soo raacay habaryartii. Kadib markii aan guriga imaanay ayaa waxaan ku sheekeysanay fadhiga cabaar ilaa laga gaaro waqtiga jiifka. Markii aan jiifanay ayaa habeenkii waxa uu ahaa habeen degan. Kadib waxaan soo kacay salaad subaxi si aan u tukado salaada. Waxaan isdhahay kici maamada. Markii aan kiciyay ayay qaylisay, waxa ay dhahday waxaad rabtaa inay disho miya? Kadib ayaan dhahay waa aniga, waa wiilka Jihaad. Waxay dhahday iga raali noqo, waxaan kuu moodayay qof kale. Waan ka soo tagay si aan u tukado. Waxaan soo galay musqusha. Kadib ayaan weysaystay. Anigoo weysaysanaya ayaa haddana mar labaad waxaan maqlay qayli. Waxa ay dhahaysay iga fogow, waxaad rabtaa inaad disho. Markaan u imaaday ayaa waxaan u soo galay ayada oo kor loo hayo, mana arkin qofka u hayo, waa ay boodboodaysay. Waxa ay ugu dhahday isaga carar meeshaan, asaga wuu kuu joodaa, wuxuuna rabaa inuu ku dilo. Waxaan dhahay aniga laakiin waxba uma joodo. Waxay dhahday asaga ayaa kuu jooda ee waxaad isku daydaa inaad cararto. Isla markii waxaan u soo jeestay dhanka albaabka anigoo cararaya. Markii aan albaabka ka soo baxay ayaa waxaan imaaday gurigeena. Aabbahay ayaa iga hor imaaday, waxaan u sheegay wixii dhacay. Kadib aniga waan suuxay. Subaxdii dambe waxaan ugu soo kalahday Maama Khadiija ayadoo ka cudur daaranaysa wixii dhacay xalay hore. Waxay dhahday iga raali noqda.
kadib subaxda markaan soo aaday iskuulka ayaa waxaan maqlay ayadoo qaylinayso oo caynaysa ninkeeda. Kadib markaan soo baxnay ayaa ilmaha iskuulka mid walba wuxuu ku sheekeynayay hadal hor leh. Gabar waxa ay dhahday waxa ay waalatay kadib markii ay ninkeeda weysay. Kadib waxay dhahday mid kale waa waalan tahay waxaas ma jiraan. Tu kale ayaa dhahday waxaa habaaray ninkeedii. Waxaan weydiiyey sababta uu habaaray. Waxay dhahday waxay ahayd islaan aad u qayli badan. Iyadoo maalin maalmaha ka mid ah ku qaylinaysa ayaa waxaa xanuunay wadnaha. Kadib saas ayuu ku dhintay. Waxaan dhahay warkaas waa been. Maama Khadiija lagama yaabo xataa inay quraanjo disho. Waayo waa maamo aad u fiican. Waxa ay igu dhahday calaa kulli xaal hadday saas kusii sugnaato waxa ay u dhiman doontaa waalidan ay ku jirto. Iskoolka ayaan soo gaarnay. Iskoolka ayaan ka soo laabanay waana sheekeysanaynay. Waxaa ka soo wareegatay maalmo aad u badan. Waxay ahayd deganaansho. Magaaladana waa ay iska degneed. Laakiin waxaa la maqli jiray codka maama Khadiija subax iyo galab. Dadka deriska waxa ay ku sheekeyn jireen sheekooyin aanan jirin. Waxaana ugu badnaa dumarka. Waxay sheegi jireen waxyaabo been ah iyo wax qaar ay maqleen. Waxa ayna ku sheegi jireen hadallo kala duwan. Ilaa maalin maalmaha ka mid ah hooyadii ay i weydiiso. Waxay hooyadii aabahay ku dhahday seed u aragtaa inaan wacno wiilkeeda. Waxa uu dhahay waxaa laga yaabaa inuu og yahay. Waxay dhahday hadduu og yahay waxaan kula talinaynaa inuu imaado. Haddii uu ogeenna waan u sheegaynaa. Waa uu waafaqay aabahay waxa uu wacay wiilkeedii. Markii uu naga qabtay ayaa waxa uu dhahay maana ogeen waxaas iimayna sheegin balse sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan ku imaan doonaa. Subaxdii dambe waxaa imaaday maama Khadiija wiilkeedii. Ayada markuu u imaaday ayay aad u farxeen. Sheekooyin badan iyo markii ay isdhex marsadeen. Kadib ma maqli jirin qaylida. Gurigana wuu deganaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa maama Khadiija waxay soo booqatay hooyadii. Waxa ay weydiisay xaalkeeda. Waxay dhahday ka waran bal ma kaa haray ninkaagii ayadoo kaftamaysa. Intay qosashay ayay waxay dhahday waxaa iga haray ninkii waayo wuxuu ku faraxsan yahay wiilkiisa imaashihiisa. Qosol iyo farxad kadib ileen waa wiilka uu asaga dhalay. Markii ay sheekaysteen kadib ayaa waxaa maama Khadiija dhahday waa inaan baxaa. Waxaa la gaaray waqtigii aan bixi lahaa. Kadib maalmihii waxa ay ku soo laabteen deganaashahoodii. Mana jirin wax isbeddel ah. Markii aan soo baxay oo soo aaday iskoolka ayaa anigoo waddada maraya waxaan arkay maama Khadiija oo saaran gurigeeda balakoonkiisa. Waxa ay dhahaysay ha i dilin. Waxayna u bixisay gadaal gadaal. Waxay maqlaynay qaylideeda. Dadkii markay isku soo baxeen ayaa waxaa mar ay ka soo fakatay balakoonkii. Waxa ay ku soo dhacday dhulka. Kadib dadkii meesha jooga ayaa waxay u waceen ambalaasta iyo booliiskaba. Waxaa loo qaaday isbitaalka. Dhowr daqiiqo kadib markii la joogay ayaa waxaana loo soo sheegay in ay dhimatay. Booliiska waxa ay bilaabeen in ay baaraan dilka waxa ka dambeeyay. Waxaana sheegayeen dadka sheekooyin aad u fara badan. Isbuuc kadib kiiska waa la xiray. Waxaana la sheegay in ay ayada isdishay. Laakiin dadka deriska waxa ay dhahayeen ayada ismayna dilin. Waxaa dilay horarkii ninkeedii. Kuwa qaarna waxa ay dhahayeen waxaa dilay wiilkeeda si uu asaga u dhaxlo. Ilaa haddana lama oga waxa dilay. Dadka qaar waxa ay sheegayaan in uu dilay bahalkeeda. Laakiin adinka maxay ila tahay?